noloshaada haysataan oo sii wada nabadgelyadaada haysataan sii xoojiya abaaraha dhulkeenna ilaahay naga soo qaboojiyo ilaahay baa mahadle maanta halkaa inagu kulaysiiyey baa qadaray inaan halkan maanta iskugu nimaadno gaasku waa boqorkeennii dulqaad buu boqor u yahay deeq buu boqor u yahay dadnimuu boqor u yahay waxaan aad iyo aad maanta halkan si qiimo leh oo sharaf leh ugu soo dhowaynaynaa suldaan ugaas cabdirashiid waxaan leenahay ugaas maanta waxaa timi ciiddaadii jamhuuriyadda somaliland oo dhani aanay kugu wada harin ee halkan waxaa jooga salaadiintii ka timi gobollada somaliland oo dhan nugaaska ku marti qaadaynaa anigoo ku hadlaya afkii beelaha isaaqoo dhan anoo ku hadlaya waxaannu ku marti qaadaynaa gobolka maroodijeex gobolka togdheer gobolka saaxil gobolka sareeg gobolka sool taariikh baa maanta qorantay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu meel kastoo adduunka joogtaan dhammaan waxaa ku salaamantahay salaanta islaamka waxaan doonayaa inaan ka hadlo guusha maanta somalilan u qabsoontay iyo qiimaha ay leedahay waxaan doonayaa inaan sidoo kale ka yara hadlo oon yara dul istaago oon hadalla ku yara idhaahdo ugaaska dabcan ugaas cabdirashiid ugu horreyn halkaas sidaan idin daawadsiiyey waxaa ku soo dhoweeyey madax dhaqameedkii uu ka maqnaa haddii ay tahay sideedda reer sheekh isxaaq iyo haddii ay tahay beesha ciise iyo haddii ay tahay iyagana ugaasyadii kale ama salaadiintii kale ee beesha samaroon meeshaa looma kala hadhin si aad iyo aad u qurux badan ayaa loo soo dhoweeyey waayo halkaa hadalladii qiimaha badnaa ee ay ka jeediyeen siyaasiyiinta kala duwan inaad daawateen ayaan rajaynayaa oo aan idin soo daawadsiiyey haddii ay tahay wasiirka warfaafinta hadday tahay wasiirka arrimaha gudaha haddii ay tahay dhalinyartii kale haddii ay tahay ciidamadii de qalabaysnaa ee aa arkayseen ee halkaa ammaankiisa sugayey iyo haddii ay tahay shacabkii faraha badnaa ee soo dhoweeyeyba waayahay somalilan waxa u qabsoontay maanta wax weyn baa u qabsoomay waxa maanta somalilan dalnimadii iyo dowladnimadii qaybtiisa watay qaybtiisa qaaday ugaas aad iyo aad u qiimo dhulka ku leh qaaya dhulka ku leh taariikh dhulka ku leh dalkan somalilanna dabcan haddii uu dadkaas sida sare ula sii dhufto ay meel fog gaadhayso waa shaksi dabcan dhulkan iyo dadkan qayb weyn oo ka midi ay aaminsan tahay waxa uu yidhaahdana ay raacsan tahay sida oo kale arrinkaa waxa aad iyo aad si qurux badan uga qayb qaatay oon aad iyo aad uga helay gaar ahaan salaadiinta reer sheekh isxaaq oo waxa weeye booskoodii qaatay dowladduna waxay qaadatay booskii ugu muhiimsanaa maanta cadowgii somalilan ee islahaa markuu ugaasku halkaa ka soo galo gala dagaalka ha yidhaahdo waxa weeye somalilan waa kan ictiraafka usoo dhowdhow ee aynu samaroon hubka soo gelino aynu jabhada u samayno aynu ku kicino aynu kula dagaalano qarannimada somalilan aynu isku dirno samaroon iyo reer sheekh isxaaq maanta gabal baas baa u dumay waxaan aad iyo aad uga faraxsanahay inuu ugaaskaasi sidii uu xorriyadda dalka uga qayb qaatay oo ictiraafka dalkana uga qayb qaatay oo maanta wakhti ay adag tahay oo soomaaliya oo dhamme ay cadow u tahay somalilan oo meel kasta loo soo taagan yahay oo waxa weeye qaybtii dadkiisa uu qaatay insha allah waxaan rajaynayaa
waxa yaryara jirjiran insha Allah inuu dhameeyo ayaan insha Allah rajeynaya sidoo kale waxaan rajeynaya iyaguna reer Sheekh Isxaaq sida ugaaskaas qaybtiisa u qaatay inay iyaguna ay qaataan haddaba waxaan wax yar idinka daba geenayaa qoladii diidanayd abtirsiinta ha u eegin reer Sheekh Isxaaq way noqon karaan Samaroon bay noqon karaan ciisay noqon karaan cid kastay noqon karaan waa cid diidan qarannimada Soomaaliland waxay u adeegayaan Soomaaliya waxay ka dagaalamayaan in shakhsi qiimo leh oo dadka qiimo ku dhaxleh oo dalka qiimo ku dhaxleh oo dad kamida bulshada reer Soomaaliland ay aaminsan yihiin ay Soomaaliland hesho oo madaxweynaha garab galo oo ictiraafka iyo dawladnimada la soo qaado waxay diidan yihiin in Boorama ay nabad ahaato waxay doonayaan inuu qalalaansa ka dhaco waxay doonayaan in la yiraahdo Cabdiraxmaan Ciro waa reer Sheekh Isxaaq oo Boorama duulimaad ku yahay waxyaabaha noocaas oo kale ayay qayb ka yihiin waxay doonayaan marka uu Mareykanku dabcan haddii uu ictiraafka ku dhawaaqo in ay dhulkan dagaal ka ridaan iyaga oo diidan dabcan inuu dhulkani dawlad helo waxay ka cararayaan oo ay ka baqanayaan oo ay ka sii cabsi qabaan inaanay sharkooda iyo qalalaansahooda iyo jabhadahoodu aanay shaqaynaynin haddii ugaaskii dhulkaba mas'uulka ka ahaa uu yiraahdo waryaada dhulkaygu waa nabad waryaada dadkaygu waa Soomaaliland waryaada dalkaygu waa Soomaaliland anigu dawladnimada Soomaaliland waan aaminsanay inta ay ka cararayaan waa inta ay ka dhimanayaan waa inta ay ka dagaalamayaan waa inta reer Sheekh Isxaaq dabas ee waxyaabaha leh ee ugaaska dhib wada leh iyo inta Samaroona ugaaska dhib wada lehba waa sharwadayaasha dhulkan iyo ciidan iyo dalkan aynu halgamayno maanta Soomaaliland waxa u qabsoomay waxa weeye wax weyn baa u qabsoomay marka waa guul waana arrin wanaagsan waxaan rajeynayaa haddaba aan hadalkayga ku daraya oo ku soo gabagabeynaya dadka dhulkan degan uga dadkii ka horeeyay ugaas waxay u wada haayeen way wada cisayn jireen dadku wayna wada sharfi jireen hadda waxa dhacday wax xisbiya la yiraahdo socda wax kala kooxaysi la yiraahdo socda waxaan kala dardaarmayaa inuu qiimahaagu hoos u dhaco oo aad xisbiyada ku dhex milanto waan ogahay wadani qayb baad ka haydaa soo saarto waad ku mahadsan tahay mar kasta eeg cidda aad isleedahay dalkan iyo dadkan ayay maaragtay guul u tahay ka habar awalyu ka shakiin ee kulmiye ah ka habar jeclo ee kaah ah ka garxajis ee wadani ah ka Samaroon xisbiga samaysanaya ama gudoomiyaasha xisbiyada qaadanaya waa inuu ninka habar awal ku arkaa nasteexiisa iyo ugaaskiisana waa tahay de garxajis ku arkaa waa inuu ka arab ku arkaa waa inuu ka habar jeclo ku arkaa waa inay xisbiyadu ku arkaan nin sandalad facweyna oo dhulka fadhida oo haddii kaah iyo kulmiye iyo wadani ay isqabsadaan kala saaraya waa inaanu kulmiye ka shakiin oo oran ninkani wadani buu kamid yahay waa in aanu ka shakiin oo oran kani waa wadani waa inaanu wadani ka shakiin oo aanu oran kani waa kulmiye ama waa kaah laakiin dabcan dadkaaga kii wacan markaa waad u doori kartaa laakiin waxa la doonayaa inaad cadaalad u fasho oo dadkani way isqabsadaan oo madaxa isla galaan oo waxa dadkeena dhibay ee halka gaarsiiyay ee dawlad la'aanta ina dhigayba waa isqabsiga dhexdeena inaad noqoto dayr Soomaaliland oo dhan u dhex ah oo ay harsadaan kulmiye wadani waxa weeye kaah sidoo kale beelaha 8 reer Sheekh Isxaaq iyo dabcan Samaroon oo dhan haday Jibriil Yunus tahay haday Maxamed Casad tahay iyo hadii ay wax reer dhamaantood ay harsadaan ilaa ciise ayaan insha Allah rajeynaya hatta hartiga Soomaaliland aaminsan insha Allah inta waan kula dardaarmaya oo inaanad isaaqa ku dhex milmina insha Allah waan kula dardaarmaya maanta meeshaan guul baa ka dhacday sidaas asxaabta qiimaha badan ay wax u dhaceen maanta